أهلا نجدين حياة روحي رعاكم الله بالأمان أخذتم العقل بالفؤاد جمالكم سادتي munaasabad ay ku qalin jebinayeen arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ah iyo qaar ka mid ah kitaabaha shareecada islaamka ayaa lagu qabtay gudaha madrasada alhuda oo ka mid ah madaarista hoos tagta mu'asasada macalin nuur madrasadan oo ku taala xaafadda buulaxoobay ee degmada wadajir ee gobolka banaadir ayaa waxaa la aasaasay sanadkii 1982 waxayna muddadii ay jirtay soo saartay oo ka aflaxay kumanaan arday ah oo ku kala nool dunida daafaheeda sidoo kalena madrasadu waxa ay sanad kasta soo saartaa in ka badan 100 arday oo dhammaysata qur-aanka kariimka ah iyo qaar ka mid ah kitaabaha aasaaska ah ee shareecada islaamka maamulaha guud ee madrasada muallim cabdi qaasim sheekh cabdi ayaa soo qaban qaabiyay munaasabadan qiimaha badan iyada oo ay ka soo qayb galeen mashaayikh muallimiin iyo waalidiinta ardaydoodu ay qalin jebinaysay dufcadii 65aad ayaa xafladan qalin jebinta ah loo dhigay waxaana goobta ka hadlay qaar ka mid ah mashaaikhdii ka soo qayb gashay oo jasadkan oo hadda bilaadanka laba u qaybsan yahay ruuxi mid oo ruuxda ah iyo mid jasad ah u qaybsan yahay ruuxdu waxa waaye macalinka iska leh oo bimacnaa ruuxdu wuxuu leeyahay macalinku leeyahay cunuga wuxuu bari diin uu bari waxba uu tarbiyay waxba uu sameeyay ruuxdiisi marka uu tarbiyayna macalinka oo hadday noqon lahayd tarbiyadii islaamka hadday noqon lahayd diinta barideedii waa asaas waay ruuxdii marka jasadkana labadii waalid oo dhashay iska leh oo iyagana oo macnaa u sabab ahay cunugan ijaadintiisa ilaahay inuu adduunyada keeno labadii waalid oo sabab ka ahayd iyagana waxay leeyihiin jasadkiisay leeyihiin marka jasadkii iyo ruuxigii culimmadu waxay fadlileen ninka ruuxiga ah inuu fadli badan yahay oo jasadka ninka quraanka baro diinta ilaahay cunuga bari inuu yahay ninka fadliga badan oo bimacnaa ruuxdiisii dhamaaday oo tarbiyeeyo haya marka waxaa loo culimmada ay tiraahdaa macalinka wuxuu taagan yahay manzilatal waalid uu taagan yahay manzilatal waalid marka wuxuu ku tagay ruuxdaas oo ilaahay oo ruuxdaas oo barbaariyay marka nabigu wuxuu leeyahay marka khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu marka qofta haday quraanka ay barato oo ilaahay quraanka oo fahamsiiyo ay quraanka ay barato maxaa laga rabaa marka quraanka haday barato oo ilaahay quraanka oo u fududeeyo waxaa la rabaa quraankii in la xifdiyo waa la xifdiyay hadii la xifdiyay marka waxaa la rabaa quraankii see lagu hayaa quraanka waxaa loo baahan yahay nimankan hadda maanta qalin jibiyay waxaa loo baahan yahay quraankii akhrintiisii inay badiyaan quraanka in la akhriyo in maaragtay la muraajaceeyo haddii aanan la akhriyin nabigu wuxuu yidhi salawaatullahi wasalaamu caleyh xadiid oo soomaaligiis yahay quraanka wuxuu la mid yahay neef geel uu la mid yahay neefka geele ah haddii la dabro ninka iskale waa meeshii uu soo tago meeshiisa uu joogaya laakiin haddaanan la dabrin waa fakanaya quraankana wuxuu la mid yahay neefkaas geel uu la mid yahay oo la dabray uu la mid yahay marka waxaana quraanka dabarkiisa ah in la akhriyo oo markaas la muraajaceeyo oo la akhriyo marka taas marka uu in quraanka la haayo runtii dad iga haboona oo iga weyn cilmi ahaan iyo ahaan way jiraan laakiin qadarka anay noqoto in aan hadlo waxaan rabaa anoo ka mid ah macallimiinta waalidiinta ardada halkan dhigta ka mid ah 3 aan ay dhigata waxaan bogaadinayaa dadaalka iyo tarbiyada iyo tacliinta quraanka kariimka ee madrasada ay noo hayso qaarkeen ay halkan xaafadda u yihiin dugsiga dartiis iyo sida wanaagsan ee caruurta inta ay soo dhaafeen jalaadada jusida ay xifdisiin sidoo kale tarbiyada iyo ahadiista iyo adkaarta kale loo xifdisiyo waxaan leeyahay Allah idin barakeeyo quraan kariimka qof aanan baranin waxyaabaha kale oo maadooyin kale ee iskuulada laga barto meel kama gaaro aniga yaraantayda baadiye quraan ku soo bartay sidaan oo kale markii laba mar aan dhameeyo quraanka ayaan iskuulkii bilaabay ilaa jaamacad ilaa markii ugu dambeysay aanan dhakhtar noqday marka waxaan rabaa in macallimiintu bogaadina dadaalka inay sii wadaan
إن شاء الله سنة أم الله سنة كده بنستان وكله أنا كسوق يبقى دونا حفلة قلجبن ويكون جران عروس تيدا أصل كان وإسلام لما هدي أمين نواتن كبر يا يلا هدينت أودناكم إن هلين ريا توحيد أما قندري يا قلني مكنتي اللهين أمي بانو إحسان فلي نقول هنوني يورغم هذين الحمد لله رب محط إذ الكاد dhammaan waxaan salaamayaa macallimiinta ardada waalidiinta sharafta leh meesha fadhiyaan qof walba maqaamkiisa ayaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaantiin macallimiinteena sharafta leh meesha fadhiya waad mahadsantihiin khayr badan allah ina siiyo ayaan leenahay adinka ayaan noo horseedeen khayrkan maanta aan durduuranayno oo baritaanka qur-aanka kariimka iyo diinta islaamka aadna barteen waalidiinteeni waxaa tihiin labaad khayr badan allah ina siiyo mahad celin ma ogiye meeshaan wax kale hadda kuma aan hayo waalidiintan waxaan leeyahay adinkana garabkii labaad ayaa tihiin khayr badan allah ina siiyo ardada waad mahadsan tihiin qur-aanka kariimka dhammaysatay kuwa kale oo ku daba jirana sidoo kale ayaan u rajaynayaa iyo kuwii ka horeeyey قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتريه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نبينا محمد بن عبد الله بن عبد مطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن قالب بن فهرة بن مالك بن نضرة بن كنانة بن قسيمة بن مدركة بن إلياس بن نضرة بن نزار بن معد بن عدنان ومن جهة الأم هو سيدنا محمد بن سيدة آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زورة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فير بن مالك بن نضر بن كنانة بن قسيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان aniga subixii salaada kaca naftaan saxaya u sujuuda bara sideen ardayay salada u saxnaa ilaa camalkiisa u suubinaynaa salaada ninkii sagsagaliya siduu yali aakhira sugise allaha sadirka sare mudano su-aasha xaggiisa haseegina sunnaha nebiga saxnaan badano wixii suban buu sameeyaaye macalin sunniya wax kaa saxaya sudkiisa qalbiga u sii daaye sidkii walidkeen sideen u gudnaa inagu samihiisa u sii wadanaa ardayda saacidka subciska jaraye sifaha jahligee xun ka soo jooge كم أنواع من يا من القنوع يقسم شرعا حق شرعك اذكر شيء عدد كل نوع قسم حق شيء الماضي اثنان لا يقسمان القليل خيرا القليل خيرا وكثير خيرا القليل خيرا ما بين القلة وخيرا وكثير بيننا كل كان فاختار قبل الله متى تطير بنت سعيد سواء الماء به قليل يرى وكثير بطنا الماء به قليل يرى يتنجس من
ugu dambeyntiina waxaa munaasabadda soo xiray maamulaha guud ee madrasada alhuda معلم عبد قاسم شيخ عبدي. الحمد لله إلهي بمهدله نسوى فجيي ماشان بركة بدن oo lagu khatimayo quraanka kariimka ah sida la wada og yahay khayrul buqac waaye biqacda ilaahay oo ma aragta adduunkiisa ku taalo meesha ugu khayr badan waa masaajidda iyo madaarista quraanka sida la wada og yahay maxaa yeelay masaajidda waxaa lagu gutaa salaada ilaahay faradka ilaahayna saaray ayaan ku gudanaa faradka la gudashadiisana waxaa laga soo bartaa madaarista quraanka laga soo bartaa iyo meelaha ma aragtaa xalaqaadka cilmiga ah alxamdulilah maanta 19 canug ayaa noo qalin jibinaysay aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waa 10 gabdhood iyo 9 wiil waaye alxamdulilah madrasadan hore loogu qalin jibi jiray haddana haddii ilaahay raa ilaa qiyaamaha saasay u dhisnaanaysaa buqcadan aad arkaysiin looma samaynin ilaa litacliimi alqur'aan wa tacliimi ashariica in lagu barta qur'aanka kariimka ah iyo in lagu barta shareecada islaamka ayaa loo sameeyey ee looma samaynin in la kala dhaxlo oo hadhow ama la gato amaba ma aragtaa wax kale oo waxaan diin ah loo isticmaalo mamnuucay ka tahay madrasadan sidaad ogtihiin waxay ku taallaa dhul waqaf ah ee uu bixiyey sheekheena macal nuur maxamed siyaad uu bixiyey haddana ay ka mid tahay ma aragtaa baqaa'icda ugu khayrka badan oo sheekheena uu ma aragtaa jideeyey ayay ka mid tahay